وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وانا معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وانا معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وانا معلنكا واجي بريبا أو بحلقة ورابشو وحنهاي وانا معلنكا وحنهاي وهديقة الرحيم waxaan barta ka sii wadaynaa duruusteena Ingiriisiga ahayd waxaan maanta galeynaa fasalka form 2ga unit 9 cutubka 9aad baan bilaabaynaa casharka la yiraahdo the war erupts waxa weeye waa dagaalkii oo dhacaya dagaalkii oo qarxaya ayaan eegaynaa buuggiina ayadu soo bixi doontaan unit 9 isagoo slides ayaan akhriyeynaa insha Allah daawasho wanaagsan iyo waayahay sida ciwaanka ayaan ku soo sheegnay maadaduna maanta waa English fasalka waa form 2 unitku waa unit 9 waxaan bilaabaynaa casharka the war erupts waa dagaalkii oo qarxaya the war erupts arday waxaan filayaa idinka waa idinku sheeko waa idinku maqal inaan aad maqashaan dagaal dhacaya hada casharkan aad ugu fiirsada aad u dhageysta over the loudspeaker iyadoo uu ku hadlayo ama lagu hadlayo cod dheer ayaa waxaan maqlayay I could hear crackling waxaan maqlayay crackling crackle waxa la yiraahdaa waa cod iska daba dhacaya baa la yiraahdaa cod weeye sida mesela codka dabka oo kale markuu leeyahay oo kale marka crackling means making noise or sudden noise cod ayaa marka dhacayay of static codkaas oo taagan cod marka taagan oo isbedelin weeye and the voice of our principal waxa sidoo kale codka dheer ee rasaastaha ee dhacaya la maqlay waxa sidoo kale la maqlayay codkii maamulaha iyaga principal the headmaster his words echoed codkiisu uu soo laba noqonay echo jabaqda la yiraahdaa marka codku soo laba noqdo gidaarku markuu soo celiyo kale codka ayaa soo noqonayay in the little classroom waxa soo celinaya codka classka yar gidaaridiisa ayaa soo celinaya jabaq ahaan I was sitting in classkaas oo aan dhex fadhiyay on that fateful October waxay ahayd waqtigu waxay ahayd maalin means absila baa fateful waxa la yiraahdaa sidoo kale waxa dhedliga macnaha dhimashada leh October afternoon galab marka October ba ahayd oo dhimasho leh macnaha dagaalka dhacay maalinta galabta dad badan baa dhintay I put my pencil down qalinkaygii qalin pencilka habaan saaray macnaha miiska ayaan iska saaray and listened as he spoke waxaan dhageystay macallinkii marka maamulihii markuu hadlayay he was telling us anaga wuxuu noo sheegayay that the school was dismissed in schoolka ardayda la kala dareerinayo dismissed marka waa kala dareerin ardayda kala dareerayaan oo xaafadooda kala tagayaan and that the war had begun inuu dagaal bilaabmay in our country dalkeena ka bilaabmay and we all needed dhammaan waxaan u baahanay to get to the safety inuu qof kasta u cararo xagga iyo badbaadada of our homes guryaha as soon as possible so ugu dhaqsaha badan leh qof kasta inuu cararo gurigiisa tago his voice was strange codkiisu cod aad u qariib ah buu haayo aad u layaab badan it held the sound of fear in it anaga macnaha wuxuu nagu codkaasi wuxuu na geliyay macnaha cabsi buu na geliyay cod cabsi leh ayuu markaa ahaa I was 7 years old man xilligan 7 jir baan ahaa
I had no idea wax fikra kama haysan dagaalka why war was sweeping through Somalia sababta dagaalku sweeping through ugu fidayo sababta dagaalku ugu fidayo ugu baahiyo Somalia or the way political worked iyo qaabka ama habka siyaasiyiintu ay magaranaysaayay worked I did know macna sida u dhaqmayaan dagaalka ay u sameynayaan anigu waxa weeye ma ahayn midaan wax ka garanayo however si kastaba ha ahaatee that my life was about to change isla xaaladda wax isbedeshay noloshaydii arday wax baranaya ayaa isla markiiba wax isku bedeshay xaalad dagaal I could tell by the panic waxaan sheegi karayay macnaha argagaxa panic waa argagax that had spread throughout my school ku fiday iskuulkayga and in the street iyo wadada that afternoon galabta marka macnaha shaarica dibadda iyo iskuulkaba cabsida ka fiday that things day I was sucking into it yani maalinta aan dhex galay sucking into waa dhex galid weeye cabsida aan maalinta aan dhex galay ardayga wax barashada diyaarka u ahaa I followed the lead of the rest of my schoolmates waxaan raacay dariiqii ay mareen inta ka soo hadhay the rest inta ka soo hadhay of my schoolmates ardayda soo iskuulka ahayn and dashed outside dibadda loo degdegay dash means hurried dibadda loo degdegnay one out in the open air waxaan u baxnay isla markiiba hawadii macnaha waxaan ka hadlay waxaan u jeednaa markaa dibadda ayaan markiiba u baxay markiiba waxaan u baxay maxay dibadda ayaan u yaacnay people buzzed dadku waxay sameynayeen buzz waxay sameynayeen waxa la yiraahdo buuq iyo sawaxan ayay markaa dadku ay sameynayeen oo meesha buuq ayaa ka taagnaa around me macnaha hareerahayga meesha buuq baa ka taagnaa okay and one is out in the open air isla markiiba waxaan u yaacnay markaa dibaddaan u yaacnay halkaasi waa one is weeye people buzzed around me dadku waxay u yaaceen hareeraha dadku waxay ka buuqiyeen baan u jeedaa buzz waxay ka buuqiyeen hareerahayga students were running off ardaydu way kala yaacayeen midba meel buu cararayay in the directions of their own homes jihooyinka guryahooda or being swept up ama qaarkood waxa qaadayba by their parents waxa la booday swept up waxa la booday oo qaaday waalidkood I was frozen okay ku yar joojiba okay ana halka ku yar celiyo I followed the lead waxaan raacay halkii ay mareen of the rest inta ka soo hadhay of my schoolmates ardaydan iskuulka ahayn and dash means hurried waxaan u degdegay outside dibadda one is out isla markiiba waxaan u baxnay in the open air macnaha dibadda aan u baxnay hawada openka ee dibadda ayaan u baxnay daaradaha iyo meelahaas aan u baxnay deerka people buzzed around me dadkii ayaa hareeraha ku soo buuqay and students were running off ardaydu waxay u kala yaacayeen in the directions of their own homes jihooyinka guryahooda or being swept up ama qaarkood waxa markiiba dhuftay oo qaaday by their parents waalidkoodii baa qaaday I was frozen though anu waan qarqarayay markaa naxdin baan la qarqarayay oo la gariirayay cabsi baan la gariirayay markaa it was a standing rule annaga waxa noo yaala hadaba xeer baa noo taagan jara meel noo yaala xeerka noo yaala waxa weeye in my house gurigayga ama xaafadayada xeer baan lahayn xeerkaas wuxuu ahaa that I was not allowed to leave the school yard inaanan anigu ka bixin school yardka deerka markaa iskuulka oo ardayga ama ardayadan waxa soo qaadi jiray markaa aabaheed baa markaa inan baheeday aabaheed baa soo qaadi jiray wuxuu amar ku siiyey intan macnaha shaqada ka soo rawaxayo inaad igu sugtid iskuulka ha bixin without my father macnaha bahay la'aantiin aan bixi karin all I could do anu waxaan samayn karaa waxay ahayd was watch
with the few others who were grounded inaan meesha eego unan daawado with the few others dadka kale yar who were grounded kuwaasoo beerka dhigay to the school ground like me macnaha iskuulka ku soo hadhay daaradiisa oo iskuulka dhulkiisa beerka dhigay xabadda dhacaysa iyo cabsida awgeed beerka dhulka dhigay jiifsaday and sidoo kale watching people running left and right waxaan sidoo kale daawanayay dadka u kala yaacaya bidix iyo midig iyagoo terrified cabsanaya never leave the school inaan ka bixin iskuulka by yourself Halima qaacidadaasaan qabay aabahay yiri Halimay iskuulka ka bixin I heard my father say waxaan maqlayay markaa aabahay oo leh as debated macnaha sidii aan ka wada doodnaan ka wada hadalnay what to do macnaha samaysid samee aabahay baa yiri marna waxa bixin macnaha xataa xilligii nabadda lahaa qaacida noo taali xirkana yaalo inaan bixin la yimaado and do not ever live with a stranger hatta qof aanan garanayno qalaad stranger qof qalaad oo aanan garanayno raaco oo la baxo where he is kind or not qofkaas inuu ay macnaha sidoo doona ahaado mid naxariis leh iyo mid kala midnaba you wait for me always wuxuu marka had iyo jeer aniga waad isugaysaa marka and then halka marka la marayo hadaba maxaa dhacay xaaladda way isbedeshay xaaladda marka waa maxay way isbedeshay oo maxaa dhacay the rivals began to fire rivalku waa qoryaha weeye qoryaha dagta lagu qaatay shoulder ganiska ayaa waxay bilaabeen qoryihii dagta lagu sitay inay dhacaan to fire to open fire inay dhacaan things got bloody xaaladihii baa isbedelay oo arrimihii baa xumaaday oo dhiig baa badaatay there were men with machine guns rag baa meesha yaacayay sita qoryaha machine gunska boobayaasha iyo qaar kale oo sita guns qoryaha kale caadiga I had never seen before aan weligii ma arag hadda ka hor ma arag raggaasoo marching ku maraya gaardis iyo socod ku maraya through the town magaalada dhexdeeda askar socod ku maraysa oo jiha kaliya ta wada jeeda gaardis iyo socod ku maraysa magaalada dhexdeeda I watched them askarta san daawaday my eyes were fixed on indhahaygu waxay toos u arkayeen macnaha fixed on indhahaygu waxay ay aad u eegayeen oo indhaha saarayeen the streets wadooyinka and the chaos waa qaska iyo xaaladda qasan chaos marka waxa weeye waa xaaladaha qaska ee rabshada ee dhacaysa ee ka jirta around me hareerahayga xaaladaha qasan ee ka jirta I heard the pounding of feet waxaan maqlayay garaaca pounding waa garaaca weeye caguhu ay garaacayaan on the pavement wada lugeedka pavement waa sidewalk ama footpath wada lugeedka and the tap marka waa sanqadha cagta ay sameeyay gig ay sameeyayso tap and tap sanqadhi gigta hayde cagaha garaacoodu rapid si degdega ayaa hadana maxaa dhacay fire cessation xabado isku xigxiga ayaa dhacay of the aminas xabadaha iyo rasaastaasoo aminas cabsi leh macnaha threatening macnaha taasoo dadka cabsi gelinaysa oo naxdin leh looking guns yards away waxa halka ka muuqanayay qoryaha iyo hubka iyo rasaasta aniga ii jirta yards away waxoogaa mitiro yards waxaan markaa eegayay oon arkayay xabadaha ka dhacaya meel yards mitiray jirta aniga the teacher who had just been teaching me Arabic macallinkii carabiga ay barayay aniga earlier anaha goor hore ma xisad hore barayay in the day maalinta macnaha subaxii hore xisadaha ay dhigay ayaa fell to the cement wuxuu ku dhacay sibirka isagoo dead dhintay xabadii baa ku dhacay halka markuu u baxay daarada he had just been killed right in front of me horteeda lagu dilay macallinkii carabiga ee horteeda ku dhintay it was the first time waa markii ugu horeysay ee noloshayda I had ever
of me macna hortayda aniga maxay lagu dilay qof lagu dilay ayaan marka anigu meesha maxaan ku raadaayay aan ku arkay kaasoo maxay yaala hortayda right in front of me right macna si toos ah xagee u yaala in front of me it was the first time wa markii ugu horeysay ahayd and I had ever seen and weligay arko a dead person of dhintay it would not be the last though inkastoo aanay ahayn kii ugu dambeeyeyna okay as my teacher lay bleeding macalinkaygii as my teacher lay bleeding halka waxa jiifay macalinkaygii dhiig baxay on the ground dhulku dhiig baxaya I stayed fixed in my spot waxaan ku ekaaday meeshayda inaan iska joogo in my spot meeshayda I could not leave without my father abahay la'aantii maan bixi karaynin no matter what wax kastoo dhacaya halkaas iska joogo that was the rule Herbert it was important to me aniga waxa muhiim ahayd to follow the rules inaan xeerarka raaco my father's abahay noo dhigay baba even when the sounds hatta markii dhawaaqii of the gunfire rasaastii magaranaysa gunfire rasaastii qoryaha fill the air ay hawada buuxisay cirku wada noqday rasaas I tried to stay calm waxaan isku daynay istajiyo to stay patient inaan dulqaad sameeyo and convince iska dhaadhiciyo myself baba would be there soon inuu aaba iman doono si dhaqsaa my brothers went to a different school walaaladay waxa kala tagi jireen iskuulo kala duwan ayay markaa tagi jireen okay and he usually picked them up aabana muxuu markaa samayn jiray iyagu soo qaadi jiray first iyagu soo qaada markuu iyaga soo qaado but I knew he would be there I knew laakiin waxaan garanayay inuu iman doono to get me as soon as inuu si dhaqsaaniga ii qaadi doono sida ugu dhaqsaha badan leh he could ee uu samayn karo I just had to be patient maxay la gudboon waa inaan dulqaad yeeshaa haddaba minutes feel like miradhada waxaad dareemaysay oon dareemayay anigu an eternity inay tahay waxaan dhammaanayn eternity waxaan dhammaanayn oo daa'ima oon dhammaanayn when you are 7 years old markaad toddoba jir tahay and waiting for your father aad sugaysid aabbaha to rescue you inuu ku badbaadiyo seconds feel miradhada waxaad dareemaysayba like an eternity inay yihiin wax aan dhammaanayn eternity wax aan dhammaanayn when guns are firing markii qoryaha rasaasta la furayay and people are dying before your eyes ay dadku ku dhimanayaan indhahaaga I tried to be still waxaan isku dayay inaan bartaa iska joogo inaan macna still ahaado wax halkaa iska joogo oo aan iska joogo oo istajiyo halkaa joogo and obey my father's rule and adeeco sharciga abahay but I could wait no more laakiin waan sugi kari waayay if I wanted to leave waxaan sugi waayay waa haddii aan doonay noolaado I would have to break baba rules and xeerarkii aaba jabiyo and so I did dabadna waan jabiyey xeerkii waan jabiyey xeerkii markii aan jabiyey maxaan sameeyey fled dabadna waan cararay weeye waan cararay markaan cararay maxaan markaa sameeyey I had no idea fikirka maan haysan how to get home gurigiisa ku tagi karo khibrad iyo waaranimo iyo aqoon maan lahayn or where I was going halkan tagayna maan garanaynin but I ran for my life noloshaydan la cararay naftaydan la cararay naftayda ay ran waan cararay sheekadii markaa waxa weeye halkaas ayay ku joogsatay ardayga halkaa wuxuu ka malaynaya ka eegi kara ka sameynaya ka fakaraya bal hadda halkay guda dhigto laba xaalaba way iman kartaa ardayadii iyo nabad gasho gurigiisa ku tagtay iyo ardayadii wax ku dhaceen labadaba waa xabko oo waa suurtagal
vocabulary-gan eegi doonaa waayahay imkii haatanna waxaan macnaynaynaa ereyadii vocabulary-ga ahaa ereyga u horeeya waa eruptus waxa weeye waa explode ama waa go off waa qarxid markuu dagaalku qarxo ayaa la yiraahdaa explode ama eruptus ereyga crackling waxaan ku sheegnay waa dhawaq continuous short sound waa cod daba socda oo gaaban oo isku xiga ama sharp sudden noise cod macnaha dheer oo dhawaq dheer la weeye sidoo kale make noise baa la ama making noise sagar marka la sameynayo waa dhawaqa rasaasta ay sameynayso ama cod kale ereyga static waa wax fixed ah cayiman oo taagan standing ama motionless aan dhaqaaqin oo taagan meel taagan habadoo kale marka meel ka dhacaysa halka aan dhaafin oo kale ay taagan tahay principal kuna waa headmaster waa maamulihii echo ama echoing waxa weeye when the sound is repeated codku markuu soo noqnoqdo ayaa la yiraahdaa fatal waa causing death macnaha dhimasho sababaya waa killer waa deadly dismissed waa kala dareerid waa sent home guriyaha la kala tagaya ardayda guriyaha tagayaan la waxayaan release waa kala dareerid sweeping through waa spread waa fidid succeed at easily oo kale marka shay sidoo kale waxa la macnaa si dhaqsa si degdeg lagu guuleysto kale ama si fudud oo kale panic waa argagax oo waa fright waa tarar argagax iyo marka waxa weeye cabsi sucked into waa taken in waa dhex galay halka qofku ku jira xaalad nabada ayuu haddana isla markaa dhex galay xaalad maxaan ku rahdayay colaad iyo dhiban daashidna waa haarid waa degdegay weeye markaa degdegay okay dashid haarid went somewhere very quickly dhaqso markii uu tagay maxaa ku sii xiga waxaa ku xiga buzzed waa sameeyay sawaxan made noise or activity macnaa qaylo iyo buuq sameeyay sidoo kale macnaa marmar iyo whisper xashashaqa iyo gunuuskana waa la oran karaa running off nawarin way waa kala cararaya weeye maxaa ku sii xiga waxaa ku sii xiga markaa waa maxay running off sweep up waa take waa qaaday weeye ama give a left force into some kind of situation ana markiiba la qaaday weeye ama xaalad degdeg loo qaado kale rifle na waa shoulder weapon waa hubka garbaha iyo degta lagu qaato kaasa la yiraahdaa marching na waa socodka wadada ciidanku ay ku maraan waa guards baa la yiraahdaa walking along the streets into a direction in step with others macnaha askartu markay wadada marayaan ay jiha wada socdaan ay cagta wada qaadayaan ayaa la yiraahdaa chaos na waa confused situation oo waa xaalad qasan weeye xaalad kacsan ama qasan oo kale qas baa la yiraahdaa xilliyada dagaalka kale ee xaaladaha qasan baa la yiraahdaa ya kacsan pounding na waa beating heavily the feet on the ground macnaha ku garaacaya cagta dhulka ku garaacaya pavement waa sidewalk wada lugeedka baa la yiraahdaa and succession waa serious sequence waa isku xigis weeye ominous na waa threatening warning cabsile baqdin cabsile eternity na waa time without end waqtiga aan dhamaanayn ama extremely long time macnaha aan dhamaanin waqti dheer intaas oo casharkeena noogu joogayaa waa inoo qaybaha dambe layliskana waan eegi doonaa insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.